mawlaca weyn ee jamaacatu Sheikh Daawud Culusow degmada warta nabadda ee Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay munaasabad heer sare ah oo ay goobjoog ka ahaayeen culimada waaweyn ee Soomaaliyeed waxaana ay ahayd munaasabad lagu xusay dhalashada xaybkayna Maxamed naxariis korkiisa Allah munaasabada sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa maadixiin xir odayaal waxgarad iyo dadweynaha xaafadda waxaana intii ay socotay si weyn loo dul istaagay siirada nabigayna Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaadaan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira محبوب المنن محمد واضح الله من هاج وسنن الله بالله جست يا للود في سهري وقيف بوادي النقاء من أشرف الوطن الله يا رب صل على محبوب المنن محمد واضح من هاج وسنن الله وعود على منحنى والرحمتين كذا بعامل شعب خير غير الراب وسكن الله يا رب صل على محبوب الإسلام ولكنة العربي الله يجاري مثل جاري المصطفى الله صل يا ربي وسلم للنبي سيد الأولين نذير عربي يا رسول الله إني مذنب ومن الجود قبول المذنبين الله سيد الأولين نذير عربي الله يا ربي الله مالك بالطول يا ربي لك يا غير النبي الله ويقيني فيك يا غير الورى أنه بلك غواص غبي علم الكرب ويبيك رجال فبه داوداءه قبل الممات الله صلاة الله تغشى كل حين محمد من أتى بالمعجزات الله أغيثه بوصل بحق محمد مولي الهبات الله صلاة الله تغشى كل حين محمد من أتى بالمعجزات الله رسول سيد بر كريم شفيع المذنبين كذا العصاة الله صلاة الله
كل حين محمد من أتى بالمعجزات الله رسول الله تودى على دين العباد محمد غير هادي إلى درب الرشاد الله الجبار جهارا بلا كيف ينادي تشفعت ظهرا وصل خير الأمور الله صلاة الله تودى على دين العباد محمد غير هادي إلى درب الرشاد الله وتعزنا وفاقا ترابي الله مدد ماني المصطفى المجتبى الله أنصار أمان خير قرانين لخير مال هدى تقلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله حققت له أملا أصلحت له عملا حتى نال ونتملا لا إله إلا الله 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 كما هب لديك دنا مرحول عليك ثنا مستغفر إليك حنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله qaar ka mid ah culimadii munaasabadda ka qayb galay oo ay ugu horeeyaan Sheekh Cabdiraxmaan Cusmaan Faarax, Sheekh Saciid Xuseen Guuleed, Sheekh Shariif Maxamuud Maxamed Jawnaxo iyo Sheekh Shariif Maxamed Cumar ayaa jeediyay muxaadaraad ku saabsan siirada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaadaane. bishaan bilaha waxay dheertahay maqaam fadliyay dheertahay fadliga ay dheertahay waxaa ka mid a nabigu inuu yidhi sala allahu wasalam calayhi yowm lithnayn ayaa nabiga soonkiisa la weydiiyey sala allahu wasalam calayh xadiidka abi qataada warinayay nabigu halkaa wuxuu ka muujiyey maalinkii ou dhashay inuu xaflad soona u dhigay ixtiraamay tacdiimiyey badarkiiyo biyihina ou ka tegay maqaam ka sarreeya ma sheegi kartaa inaad maalintaas tacdiiminteedii maalmaha ka soocdo badarkiiyo biyihina aad iska dayso oodan biyana cabin badarna aadan cunin adoo arrinkaa nicmadi ilaahay kuu galay uga shukrinaya wax lagu xuso oo lagu weyneeyo lagu ixtiraamo maalinkaa oo ka sarraysa aho ma jirto biayi suuratin naxtafilu naqtadii birasuulillaahi sala allahu wasalam calayh kayfiyo iyo qaab iyo hanaan nabiga ixtifaalkiisa aan ku dhigno suwartu hees khilaafto hay-aadku hees khilaafaano qaabyaalka iyo hanaanyaalku hees khilaafaano laakiinse nebi maxamedan sala allahu wasalam calayhi alixtifaalu bimawlidihi uga dayanaynaa asigaa noo jideeyey asigaa noo bilaaba nebi maxamed sala allahu wasalam calayh wuxuuna noogu bilaabay maanta waxaan u soomanahay isniinta waa maalintii dhexdeeda lay dhalay waa maalintii dhexdeeda rasuulnimo lay soo diray
ومالنتي دحديدا قرآن كليغو سو دجيي هي احتفال كسر رياه مجرى يا مية تامرك وحي نوع عديسي طريقة أن كسعنو هنانك يقاب كبه كلا دون هذانو ولكن سيان نوب باللابون وقضى يناي نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسولك إلهي ورتيا تدعو نقضي نبي واحد استوى لوك هنا عليه الصلاة والسلام رتيا نقدد عنوبي مركا النبي يجي وكيري عليه الصلاة والسلام وصبحين رتيجي مركي بيرت وكجرا اللي من بوت كيدي النبي واقرا بيرت أيقنا واقو قيلها يعني وحيلي رسولك إلهي ورتيجو وبالوبي يوكو عنين اسكجر ليس علي منه بأس أوير النبي عليه الصلاة والسلام وحده إيجا إمام ما يعني عنك رتيجي مركو النبي أرك عليه الصلاة والسلام أيوب عاش لك صورك تأسقنا مركاسو النبي سوء هذا مركاسو النبي كسر صلاح مدح هجان كيس عليك أنا وير هجان كيس يو قليل أرضه كشق يستوري مرك النبي عليه الصلاة والسلام مركا وحويري ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس شيء مجري يقول كان يعرك لحظة كنول إلا وحو يقانا إن رسولك إلهي أهي مركي لقرب عصاد إنس الجن وحكروا كمده أبو سعيد الخدري سيده وكشيكي نن أريسك إلى شنا يباديها مدينه ayaa waraaba rikada fay waa uu ka raaco waa uu ka dhigtay waraabihii intuu labada lugdaba ku fadhiista meeshaana wuxuu yiri amad ilaahay ka baqaysa risqi ilaahay isoo ka xiyad iga dhigatay ninkii waa yaabay yaa ajabi adibun yatakallamu kalam al-ins ma waraaba af bini aadan ku hadla markaasuu waraabihii inta la sii hadlo wuxuu ku yiri adaa iga yaa badan anigoo ergaaga meeshaan isaga ilaashanaya nabiyullaahi muxamedna dadka ay ugu yeeraa khayrka meeshaan magaaladan madiina ninka arigiisu soo qunsaday magaalada madiina meel ka mid ah ku soo xiraystay nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam qisadii uga sheekeeyay nabiguna saxaabada isugu yeeray wuxuu ku yiri bal ka dhageysta ninkan warkiis marka uu ka sheekeeyay waraabihii hadlay ee nabiga ba ku soo diray calayhi salaatu wasalaam ku soo hanuuniyay nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ilaahayga nafta nabi muxamed qudradiisa ku taagan tahan ku dhaartaahay saacada qiyaama qumi mayso ilaa dugaagta iyo insigu ay iskala hadlaan ilaa qofka jaydalkiisa oo kala hadlo adabatu sawdihi qofka jaydalka oo wato xariga yaroo ku xiran ilaa uu kala hadlo ilaa qabtaada ilaashkeedu oo kaaga sheego xaaskaagu intaad ka maqneed waxay samaysay qiyaama qumi mayso leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa marka sidaas marka mucjisooyinka qaybtaan ayaguna waa badan yihiin intaas anuga gudubno tusaale waa noogu filan tahay rasuulkayna calayhi salaatu wasalaam maalin habeenanka ka mid ah ayaa caaisha waxbay tolanaysay markaasaa cirbadii ka dhuntay waana habeen goorku mugdi ah markaas iyadoo meelaha saa u taataabanaysay ay ka maqan tahay cirbadii ayuu rasuulkoo bannaanka jira soo galay calayhi salaatu wasalaam markaasaa gurigii waxau naqda maalinta wax ka iftiin badan markaasay cirbadeedii soo qabsatay waxayna tiri maa adwa'a wajhaka yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisa wejigaaga maxaa nuur badiyay rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waylun liman laa yaraanii yowma alqiyaamah maalinta qiyaamo qofkaan i arkaynin qofkaasaa halaagsamay oo hoogay caaisha waa yaabta way tiri wejigaaga nuurka badan leh ciddaan arkayninu yaa waaye waxau rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man dukirtu cindahu falam yusalli calaya bakhiil riwaayo kale waxay ku daraysaa albakhiil bakhiilku ima aragyo bakhiilkuna waa man dukirtu cindahu falam yusalli calaya magacayga sharafta badanna qofka iyo maqlay
inuu igu salliyo kari waayo kaas ayaa bakhiila ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid kale uu ku yidhi waman lam yusalli cala almustafaa cinda adikri muxuu ahay sheekh cabdiraxmaan alceliyi abowte waman lam yusalli cala almustafaa ladda dikri abkhalu kulli lwaraa fiiri makhluuqa dhan kan ugu bakhiishan waa nabiyullaahi moxamed kan salliga u quuri waayo sala allahu calayhi wasalama isimkiisa sharafta badanne marka uu asu maqlo waxay ahaayeen dad quluubtoodii ka buuxsamay nabiga maxabadiisa calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u furay inay arkaan wuxuu yidhi nabiga ayaan arkay xalay isagoo idhahayo maxaad noo gooysay ee maana soo booqatid raaxiladeydii ii diyaari raaxiladii ayaa loo diyaariyey waan baxay buu yidhi anoo hilow iga horeeyo magaalada madiina ayaan usii baxay waxaa ka xaynayo hilow iyo maxaba magaalada madiina markaan galay buu yidhi nabiga ayaan salaamay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam sayidina abubakar isagoo khaliifatu rasuulillaahi ah ayaa wuxuu iga codsaday inaan aadaamo waan ka cudur daartay buu yidhi ma aadaami karo khaliifata rasuulillah iga dhaaf maxaa yeelay markaan aadaamo oo xilliga salaada markii la gaaro nabiga xujradiisa intaan istaago ayaan ku dhihi jiray salli bina salaata yaa rasuul allah rasuul ilaahow salaada naga bixi hadda seen ku dhahaa buu yidhi iga cudur daar ma samayn kara arrintaas wuu ka yeelay wax yar buu sii socday waxaa ka hor yimaadeen sayida shabaabi ahli ljanna sayidina xusein sayidina xasan ayaa ka hor yimaadeen wuu mucaanaqeeyey wuu shushumiyey yashumu minhumaa raa'ixata jaddihima wuxuu xaggoodii ka ursana awowgoodii riixdiisa calayhi salaatu wasalaam iyo carafkiisa ayuu ka u ursana markaasay ka codsadeen inuu aadaamo waxay ku yidhaahdeen adin lana kamaa kunta tu'adinu lijaddina sida awowgeena aada ugu aadaami jirtay noo aadaan wuu ka hor imaan waayey maxaa yeelay dad codsigoodii laga hor imaado ma aha waa sayida shabaabi ahli ljanna waa awlaadu rasuulillaah wuu ka yeelay waqtiga salaada markii la gaaray macdankii lagu aadaamayay ayuu fuulay aadaankii ayuu bilaabay allahu akbar allahu akbar magaalada madiina ayaa gariirtay ashhadu an laa ilaaha ila allah waxii banaanka joogay ayaa soo yaacay ashhadu anna muxammadan rasuulullah gabdhihii maqabiyaha ku jiray ayaa soo baxay dhammaantoodii ayagoo dhahayaan abucitha rasuulullah abucitha rasuulullah nabiga maa la soo saaray ilaan codka waa codkii uu aadaami jiray waqtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu joogay magaalada madiina bilaal naftiisa aadaanka wuu sii wadi waayey cabradii iyo oohintii ayaa dhuuntiisa xertay aadaanka ma dhammaystirin magaalada madiina maalintaas wax ka oohin badnaa ma jirin maalinta laga reebo maalintii nabiga uu wafaaday calayhi salaatu wasalaam hanii'an lahum hanii'an liquluubin qad iktaxalat acyunu asxaabiha binnadari ilaa muxayaah walaa way nasiibsadeen maxaa yeelay indhahoodu waxay ku indhakuushteen nabiga aragtidiisa calayhi salaatu wasalaam ugu dambeyn munaasabadda waxaa soo xiray saaxiibu sajaada jamaacatu sheekh daa'uud culusow sheekh cabdifataax sheekh abuukar sheekh axmed sheekh daa'uud culusow isaga oo u duceeyey dhammaan intii ka soo qayb gashay munaasabaddan sidoo kalena jamaacada ugu baaqay inay xoojiyaan weynaynta dhalashada xabiibkayna moxamed naxariis korkiisa allaha yeele qof kastoo meel ilaah uu gaarsiiyey waddada nabiga u wadaca waddo kale ma haysano maxabada nabiga qaybina allah naga siiyo mutaabacadiisana allah nagu arsuqo inaan kelima aniga xaq uma lihi dad iga aqoon badan ayaa khayr sheegay khayrku ku habboonaay macalinkaad wata wuxuu yidhi ma og tahay aniga xaq uma lihi mana munaasib umahay inaan ka hadlo yiri meesha asiga wixii lamid ah ku habboonaan leenahay oo haddii kelmad ay sheegi tagaan oo yahay oo qalbigooda
أو جلعان هاي أو قوية سيدا أني قفك وقلب مجدية وهل تين أو ينسى كسود عينين كما هبون إني كلمة شاقان تذكر قلب قويني أمدح هذا هدي لآخرين أيو سكرا نقون أيه dadkaas ku haboon inay kelimad ay sheegaan kelimadoodana weliba qulubta ay dardaray qulubta dadka waxa dhageysanaya qulubtooda iyo masaamicdoodaba kelimadooda ay dardaray waxaad ogtihiin qofka dadka wax sheegaya ama khayrka sheegan baa waada ah qof kastaba qofka ay ka tawa badan tahay kelimadooda qulubta ka saamay ogtahay way ka saamay ogtahay marka qulubta qoyan oo indhahooda ay ilmeynayso ayaa ku haboonaan leenahay inay kelimaad ka jeediyaan amba khayrka inay sheegaan khayrkana allah nagu anfaco saakinta maatirna xur allah ka dhigo inaan duceysano un maan fadhiista maana howl kala ma qabanayno insha allah waqtigan waa dawaadi faatixada akhriya wala soo jira allah naga reebo wala soo jira allah naga reebo wala soo jira allah naga reebo iyo tafaraaruq iyo isdilka iyo qalbi kala dugnaanshaha الله سو أفجره سوماليد الله اسجعليسي قلبتود الله اسكو دومو قلبتود الله اسكو دومو أحبابت ماكس جونا الله سلامي جماعة ماكس جونا الله سلامي كود بدا جرى الله سلامي ما جونا الله كدورو الله كدورو أفريقيا إيه شيء إيه أنت جرت يوروب إيه أنت أمريكا جرت جماعة هذا كميدا كور الله كديو ارجع في دق الله قلي ارجع في دق الله قلي أحبابت لما ترسد الله كديو ارجع في دق الله قلي mawlacan ayaa saldhig u ah jamaacatu Sheekh Daawud Culusow waxaana sanad waliba sidan oo kale loogu qabtaa munaasabadaha xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa Allah yeelay